بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد بعد صحافة الصومال أنا شرفت له شعبك الصومالي الآن أنت دلك تشوكتين تدافع الدنيا كسر جنبه وحنكون سلام إن صلاة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدوميها حسبك مدن عبد الرحمن محمد عبد الله عرة ما أنت حلقا وأكيد كلا حضلي سكوبا وحوقا حضلي xuquuqaha dastuuriga ee u damaanad qaaday dastuurku muwaadiniinta Soomaaliland ay ku ka tahay aragtidooda siyaasiga inay ku tabin karayaan qowl inay ku tabin karayaan qoraal gudoomiye wuxuu ku baaqay taageerayaasha gobolka Maroodijeex inay isugu yimaadaan xarunta xisbiga ee magaalada Hargeysa si madaxda xisbigu fariimo dan u ah dalka ay u faraan waxaan mar labaad u sheegayaa farayaa taageerayaasha lixda degmo ee gobolka Maroodijeex baaqi gudoomiyuhu diray inuu bartiisii taagay bari toole 8 subaxnimana xarunta xisbiga inay iimaanayaan aanu waxna iska bedelin sidina ay qolooyinkii xukuumadda u hadlayay ilaa galabta tiradoodu tobanayada gaadhaysay ee gudoomiyaha u jawaabay waxay lowsan yihiin ay indhaha iska tirayaan ay dhigaha ka furaysanayaan xeerasha dalka iyo xuquuqaha uu muwaadiniinta siiyey waxay lowsan yihiin dastuurka iyo damaanadda muwaadiniinta u qaaday mas-uuliyiinta jawaabaysay waxaa ka mid ahaa ninka sultayka leeyahay sultayka warkiisa caawa waanu haynaa haddaanu xisbiga wadanina wuxuu soo qaaday maatada milicda fadhida inuu naseexaynayo 10 sano ay sanka la gelaysaa muddo xileedkiisa uu xaaraanta kursiga ku fadhiya ma maantu maatada xasuusta markii daadku rogmanaya ee ubadka uu qaadayo hooyooyinka uu qaadayo ee mas'uuliyadiisa uu dayacay markuu cashuurtooda xaaraanta ku qaadanayaan uu sifada sharciga kursiga ku fadhiyo maatadu sheegay uu leeyahay dahabka suuqa yaala iyo lacagta suuqa taala sodonkaynana caawa uu diyaariyay min $1,000 uu siiyay iyo fawdadu bari toole caasimada gelinayo waanu ka warqabnaa waanu ogna wixii ka imaada bari toole caasimada iyo dadka maatada hadda suuqa lagu baadhana sultayka ayada mas'uuliyadeeda qaaday wuxuu cirra ku baaqina suuq ma aha waa xarunta xisbigana adna joojin maysid mid kalena joojin maayo taageerayaashana waa lagu hadlaya xeerka damaanad qaadaya inaan ummadda isugu yeedno marka dastuurka laga yimaado waa xeerka ilaalinta anshaxa iyo nabadgelyada guud xeer number 15212 qodobka 10aad firqadiisa labaad baa noo fasaxaysa inay taageerayaashu mas'uuliyiintu xisbiyadu taageerayaashooda xirmaha kula hadli karayaan ciidanka booliska waxbaha handadina muwaadiniinta masiirkooda xisbiga wadani ku aaminay ee bari toole dareenka mas'uuliyiintooda dhageysanaya ciidanka xisbi ahaan sharaf baan u haynaa waxa la gudboon inay nabadgelyada bari toole nagala shaqeeyaan oo taageerayaasheeda ay garab galaan oo sii galbiyaan oo soo galbiyaan oo intay socoto occasionka gudoomiyaha iyo madaxdu taageerayaasha ay kula hadlayaan nabadgelyada iyaga ka mas'uula cid kale uguma imanaysa nabadgelyada haddana xarunta ciidankaad keenteen ee boqolaalka gaadhaya ka qaada baan leenahay xarunta ciidankaas aad keenteen hadday joogayaanna ha noqdaan kuwa suga amniga muwaadiniinta dhageysanaysa fariimaha madaxdooda waxaan ku ururinayaa oo mar labaad aan u sheegayaa taageerayaasha degmooyinka Hargeysa ama gobolka Maroodijeex ballankii gudoomiyaha waxba iskama bedelin waxaana inay idin cabsi gelinin hadallada ka imanaya 10 nin ee maanta hadlayay qaylinay iyaga sharciga ilaalin waayay waxa la idin sheegayaana waa badbaadada qaranka oo gacantiina ku jirta aad iyo aad baad u mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.